gobolka Banaadir waxaa ka dhacay 5 kiis laga soo bilaabo 30kii bishii Oktoobar 2023 ilaa 2 November oo maanta aan joogno 5 kiis oo ka dhacday waxay kala yihiin hal kiis oo dab ah oo dhacay suuq yara ku yaala degmada Howradaag 2 miino oo dajis ah oo dad loogu dhajiyay 4 kiis oo dil ah oo siyaabo kala duwan qawaaristu ay dad waxba aan ka galabsanayn siyaabo kala duwan magaalada Muqdisho ugu kala dileen si qarsoodi ah iyo 2 kiis oo dhac ah oo kiisaskaas dhaca ah gacanta lagu dhigay eedeysanayaashii falka geystay isla markaana maxkamadda awood ku leh lagu sameeyay cadaalad loo marsiiyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ah oo iyaguna booliiska dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ka howlgalaan dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay marka laga reebo xaaladda cimilada oo iyaduna aan horena u jeedinay haddana wali roobkii dayrtu ay gooba ka socdaan kiisaska dhacay waa ilaa 3 kiis oo isugu jira 5 dhimasho ah hal kiis oo 2 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay ku dhintaan waa ka warhaysaan waxay ka dhacdeen magaalada caasimadda Dhuusamareeb ee dowladda Galmudug xubinta ka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo magaalada Matabaan degmada Matabaan oo iyaduna ah degmo ka tirsan gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo isna sidaas oo kaleeto dilal aan la xiriira ay ka dhaceen hay'adaha ammaanka goobta ku sugnaa ayaa ka howlgalay walow eedeysanayaashii aan gacanta lagu dhigin haddana maadaama bacdama la isqaano oo deegaanka dadka falka geysta la yaqaana hay'adaha ku shaqada lahaa ku howlan gacanta lagu soo dhigo xaaladaasna ay halka ku ekaato mar kale maamul goboleedka Soomaaliyeed Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar ayaa qof lab ah oo xanuunsanaya laga helay gudaha beeraha Jowhar kaas oo meyd ah wax dhibaatana aan qabin meydkiisa laga helay lana sheegay inuu qofkaas sida warbixinta ku helno ahaa qof hore oo xanuunsanaya sida kale xaaladii dirirta ka dhacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan deegaamada hoos yimaada degmada Cadale oo hay'adaha ammaanku ay ciidamo xoojin ah oo kala dhaxgal maleeshiyaadkii u direen ciidankii goobta loo diray ugu horeeyay ciidanka daraawiishta booliiska Soomaaliyeed iyo ciidan hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka oo ay u dirtay goobta si wanaagsan oo maxay ahayday gudashada waajibaadkooda ay si qurux badan u guteen ayaa deegaanka ka socda waxa la kala dhaxgalay dadkii walaalaha ahaa waxa la dhaxdhigay xabad joojin isla markaana ciidamada ammaanku waxay dhaxdhigeen dadka amar cad oo ah in aan wax hub ah iyo wax colaadaha deegaanka ku soo laaban karin sida kale waxa socda doorkii cuqaasha iyo culimada iyo waxgaradka iyo dib u heshiisiinta ayaa deegaanka ka socda laakiin xaaladii marka gacanka hadalka ahayd halkaas ku istaagtay ciidamaduna howlgallo iyo roondooyin ilaa 10 tuulo hoos yimaada degmada Cadale oo ay ka mid tahay Xaaji Cali oo ay ka mid yihiin Boos Hareeri oo ka mid yahay Biya Cadde oo ay ka mid tahay goof mareer dhammaantood ama goof Hareeri dhammaantood waa tuulooyinka ilaa 10 tuulo ah oo ciidamadaas ay ka wada howlgaleen xaaladuna aad si wanaagsan ayay u degan tahay waxaana amar cad lagu siiyay dadka deegaanka inaysan jiri karin wax hub ah oo deegaanka lagu isticmaali karo soo dhaxmari karo qofkii colaadda iyo nabadgelyada ka shaqeeyana gacan bir ciidanka ay ku qabanayaan ilaa inta ciidanka la geeyay hal qof ayaa la soo dhaxmaray hub si sharci darro ah ciidanku gacanta ay ku dhigeen isagana waa la xiray hubkeena ciidankii ammaanka ayaa la wareegay